waddanka dhaqaalihiisana wuxuu ku tiirsan yahay oo shidaalkeena ah waa xoolaha iyo beertii si toos ah dadkii ku shaqada lahaa qalbigooda loo naafeeyey xilligii ay beeraha tacban lahaayeen galley raqiisa oo muxuu ahay Mareykan iyo meel walba laga soo tacbiyaa la soo daabulaa waa la keenaa hadda deegaankii ay ka tacban jireen laga soo wado waxa leeyahay dukaanaan la insaaraya kaali oo beerihii dadkii lahaa intaasoo hektar dadkii lahaa ayaa qaxooti ah maanta oo jooga xamar kulaalaya oo kaaman ku jiro xoolahana meeshaas ay ku socdaan waxaad arki doontaa haddii ilaahay si kale uusan dhihin nin 100 geel ah iyo 200 lo iyo ari ah kasoo tagay oo xamar qaxooti ku ah sababtoo ah gudoomiye haba yaraatee hay'adaha samafalka ee Soomaaliya oo dhan u soo dhiibtay aad moodid in muxuu ahay iida wax laga sugaayo haba yaraatee wax xoolaha uu hiilinayo ma jiraan oo ay biisi ku yihiin sababtoo ah weli ma aad aragteen xoolaha suntooda shilinta loogu disho hay'adooda ma arkaysid hay'adooda waad arkaysaa badar maamadii caanaha keensan jirtay ay bilaash ku qaadanayso oo kaar inta la siiyo ay qaadanayso waan aragnaa laakiin qof xoolo leeyahay oo daawo la siinaayo oo daawadan dhibta xoolaha shilinta ugu dileeyahay ma jiro taasaa daliilka uga ah in dagaal xoolaheeni iyo beeraheeni iyo dhaqaalaheeni lagu soo wajahay inuu jiraan taasaa cadaan ah hay'ad samafal oo xoolaha bas ah ay ku shaqaleedahay la leeyahay markaysid badar ay la carraayeen timira la wada carraaya waxa la wada waxa uu noo hiilinayo oo dalkeena uu hiilinayo wax dadkeena ay inay isdiibaan oo gacmaha taagtaan bas uu hiilina waaye wax dadkeeni iyo xoolaheeni iyo dhaqaalaheeni uu hiilinayo hay'ad biisi ku amaan arkin aniga idinkana waad ila aragteen waxaan soo jeedinayaa gudoomiye waxa jiri wax leeyahay goshi iyo gindiga goshi iyo gindiga goorta ugu dambeysay muxuu dhulkii oo dhan golaas noqday biyihii ka soo baxay johor ayaa maanta toortooro ku sii salaysan birina golaa ka dhalinaysa gindigana waxa waaye geed xoolaha dilo goshana waa la yaqaan gindigana waa la yaqaan biyahaas waxay keenayeen dhulkii xoolaha ugu badnaay inay muxuu ahay goshi iyo gindigi muxuu ahay shimbirti maxaa la dhahay dhuuga baalka la yiraahdo xoolaha dhiiga ka dhuuqa iyo goshi xoolaha duraysi oo neefka la dhiminay inay ka dhalata ayay iimaanaysaa wax haba yaraatee biisi ku ah oo arintaas ku mashquulsan ma laha niman dagaal nagula jiro oo walaalkay sheegay oo muxuu ahay Sakariye ee 30 sano ku dhawaad sii maraya oo dagaal dalka kula jirana biyaha meeshii ay ka sahliyiin ay ka jeexaan si ay dhulkaas u noqdo dhul biidageen oo aan lagu soo weerar kale iyaga biyaha ku dhex noolaanay geedahay fuulayeen waa dad muxuu ahay ugu talagalay in Soomaaliyaba ay baaba'do si dadku u dilaayeen ay xoolahana u dilaayeen aniga waxaan soo jeedinayaa hay'adaha wasaaradaha ku shaqada leh sida wasiirka qorsheynta oo kale inaan u yeerano hay'ad dad quudinaysa ma rabnay hay'ad dad xoolaha nooleynayso beeraha noo nafaqeynayso dadkayna qaabkay abuurka noo qeybinaysaan rabnaa hay'adahan kale ee galeyda la cararaayo muxuu ahay wasaaradda ma u samaysan oo liiraa wasaaradda gargaar ha nagala baabiyo gargaar ma u baahnin dalkan gargaar uma baahno dalkan wuxuu u baahan yahay development iyo horumar ayuu u baahan yahay gargaar uma baahnin wasaaradaha aan sameeyay anaga ruuxeena ayaa laga yaabaa in aan muxuu ahay qaabka aan u Soomaalian jigareeyay inay qaldan tahay aniga waxaan soo jeedinayaa waxyaabaha dadka niyada ka dilaayo in la joojiyo oo ah dadka gacanta laga qoodinayo dadka muxuu ahay guryaha fadhiya badan dhisiinayna la leeyahay in la joojiyo in loo soo jeesto in abuur la siiyo in deegaankiisa lagu celiyo in tuulooyin ma jiraan waa laga soo awal waxa jirta buulaa jirta oo beerley ma jirta hadda wixii oo dhawaal laga soo guuray dadka deegaankooda lagu celiyo beerihi loo tacbo
عقب عقب هلا صيو يا هلا صيو كي حول جر حول عليه شلت باشي ودلنا هلا صيو قش هلا بوفيو أي هلا بوفيو وحيابها اللي رجلت دل كانوا نقول كره هلا سمين هذه على سمينين هذا وحاول إسكالو إني رهم بنقول هنا أنا قم بهاللينا